بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa halkan inaan salaan uga tabiyo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba. waxaan rabaa inaan ka hadlo xaaladda dalka midda ugu horeysa waa amniga. waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo marka hore bogaadiyo nafurnimada ciidamada qalabka sida iyo ciidamada difaaca shacabka oo runtii muujiyay dhabar adeeg xaaladda adag oo lagu jiro kuna dul qaatay xaaladda adag. waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray. intii dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacana Allah caafiyo, caafimaad degdeg Allah siiyo. runtii maanta waxaan rabaa dareenka bulshada Soomaaliyeed oo amni in uu yahay mid ay dareemayaan meel ay joogaanba khatar. maxaa yeelay 2 sano ka hor ama sanad ka hor deegaanadii laga xoreeyay al-shabaab ama argagixisada inay dib ugu soo laabteen awsan soconina dadaal ku wajahan arrimahaas oo wax looga qabanayo, taas oo runtii abuuraysa walwal iyo walaac. waxaan rabaa sidaas oo kale inaan u tilmaamo ciidamada markii ay kala daad ku yimid ama culays ku yimid waxay ahayd in dawladdu ay dadaal ku bixiso dib u habeentooda iyo kor u qaadidooda, laakiin waxa looga mashquulay waxyaabo aan wax ka soo kordhinaynin amniga ama aan wax taraynin dagaalka lagula jiro al-shabaab. taasna waxay keentay inay dhiiradaan oo goobo badan ay dib u qabsadaan ayay keentay. ilaa bilihii la soo dhaafay ayaga hogaaminayay dagaalka waxayna ahaaday tobanaanka kun madaxweynaha lagu wareejiyay iyo tobanaankii la soo tababaray in dib loo abaabulo, dib loogu celiyo dagaalada, moralkooda kor loo qaado, la garab istaago. waxa ka maqan la garab istaago ayay ahayd, taasina ma dhicin. taasina waxay keentay dagaalkii inuu gaabis weyn ku yimaado ilaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan maanta khatar ay dareemayaan. marka waxaan rabaa inaan ugu baaqo dawladda marxaladda adag ee la joogo inay waajahaan. dadka Soomaaliyeed maanta waxay ka filayeen waxay ahayd in xaaladda amniga la wajaho sidaan si ka wanaagsan. ciidamada qalabka sida dib u abaabulkooda la bilaabo, waxyaabaha ka dhiman lagu soo kordhiyo. meeshan waxa gaarsiiyana waxa waaye faragelinta iyo qaab dhismeedka lagu ciyaaray loo dhisay hab siyaasi aan loo dhisin hab amni oo aan loo dhisin qaab ciidan dagaal kula jira cadow. sidaas oo kale waxaan rabaa inaan farta ku fiiqo ciidamada difaaca shacabka deegaanada al-shabaabku ay joogaan ka dagaalamay, dhabar adeeg ay muujiyeen iyo guulaha ay ka soo hooyeen iyo iyaga laftooda sida loo dayacay iyo maanta meesha xaaladdu ay joogto. waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo qodobkaas. dawladdu marka ay mas'uuliyaddeeda ka gaabiso waxaa laga yaabaa haddana inay faraha ku fiiqdo dad aan shaqo ku lahayn. arrimahaasna waxay tusinayaan hoggaan xumo, dulqaad la'aan iyo isku kalsooni darro ayay muujinayaan. dhammaanteen waxaan wada ognahay inaan diyaar u nahay tala ka bixinaynay in cadowga laga guulaysto, laga adkaado. talooyinkii wax ku oolka ahay muddadii la soo dhaafay aan soo jeedinaynana ay suuragal noqonaysay in dhegta loo raadiciyo. marxaladdan hadda la joogo aan wada ognahay in culays badan uu jiro in looga mashquulo ciidamadii iyo amnigii looga mashquulo arrimo siyaasadeed oo shakhsi ah oo dalka sii kala fogeynaya oo ummadda sii kala geynaya meeshii la rabay xal siyaasi in la gaaro, ummadda in la isugu yeero, dagaalkuna uu noqdo dagaal ummadeed oo uusan ahaanin dagaal qof kaliya wado. waxaan la soconaa shirkii ku soo gabagabo magaalada Muqdisho inuu ku soo dhamaado campaign iyo maxaan ku yiraahdaa in ummadii la sii kala geeyo iyo in la yiraahdo waxa loo xuubsiibanayaa xisbi weyn. marka taasna waxay muujinaysaa aragti gaabnida ayay muujinaysaa. sidaas oo kale waxaa nasiib darro ah meeshii ummadda la isu keeni lahay in maanta haddana la sii fogeeyo qaar ka mid ah gobolladii horeba dhibaatooyinku uga dhaceen oo ay ka mid tahay Jubbaland. waxaan wada ognahay in isku day inqilaab lagu sameeyay, ciidamo loo diray. ciidamadii qalabka sida ee meesha tagay ay garteen waajibaadkii iyo hadafkii loo tababaray inaysan ahayn inay walaalahood kale oo difaaca kula jiray ay soo weeraraan. maanta in dib loogu celiyo mataqaanaa maamulka ma jiro, maamul la soo dhisayaa. runtii aniga waxaan arkaa taas inay tahay riwaayad. maxaa yeelay meel aadan gacanta ku haynin, aadan tala ku lahayn inaad tiraa maamul aan ka soo dhisaya waa nasiib darro. بالعكس waxay ahayd inay ka waantoobaan u soo jeestaan inay walaalaha soo jiitaan kaashadaan dadka
ay suuragal tahay inay gacan ka geystaan si loo waajaho marxaladda adag maxaa yeelay waxay ku aadan yihiin deegaan al-shabaabka uu ku badan yahay ku xoogan yahay mas'uuliyaddooda ay qaateen maanta waxay u baahnayeen dhiirigelin arrinta kale oo iyadana muhiimka waxa waaye oo runtii aad iyo aad aan uga xumahay amniga waxaa saameyn ku yeeshay siyaasad xumada maxaa yeelay dowladdu muddadii la soo dhaafay waxay aad ugu mashquulsaneed dastuur bedelid iyo campaign mataqaanaa doorasho oo aan waqtigiisa la joogin oo aad ogtihiin maanta magaalada muqdisho in la leeyahay doorasho ka jirta iyadoon dadkooda heshiis ahayn iyadoon wax la isku ogeyn iyadoon la xadidin caasimadda maqaamkeedii maxaa yeelay halkan waa meel ay wada fiirsanayeen ummadda Soomaaliyeed marka doorasho ka dhacayso waa in maqaamkeeda la xadidaa waa in dadka Soomaaliyeed dhamaantoodba ay garan karaan maqaamka magaalada muqdisho maxaa yeelay culeysyada jira maanta iyo kala socodka jira meesha lagu miday karo waa caasimadda Soomaaliya waxaan aaminsanahay dadka degan ee Soomaalida ah arrintaas waxay u sameeyeen tadxiyaad ama nafurnimo waaweyn ay u sameeyeen in marka ayaga la sii qaybiyo oo madaxa la isu geliyo runtii ayada laftigooda waa nasiib darro in la magacaawday guddiyo aan heshiis lagu ahayn oo guddi hal xisbi ka socda ah in sharciyo aan waafaqsanayn dastuurka in la sameeyey welina lagu sii socdo ayna yihiin waxa runtii sababay maanta meesha la joogo ee amni darrada ah ee kala qoqobnaanta in la joogo sidaas si lamid ah waxaan rabnaa inaan waxyaabo farta ku fiiqo dagaalka maanta ka jira dalka Soomaaliya dagaal qabiil ma aha waa dagaal u dhaxeeya dadka Soomaaliyeed iyo argagixiso ku soo duushay oo laba qayb ah laakiin isku meel ku dhamaanaysa qaybta koonfurta waxaa jooga oo aad uga howlgala nimanka la yiraahdo la magac baxay al-shabaab dhinaca barigana waxaa ka howlgala nimanka la yiraahdo ISIS runtii Puntland waxaan ugu hambaleynaynaa dadaalka iyo nafurka ay sameeyeen iyo guulaha ay ka soo gaareen waxaan la garab taaganahay support maxaa yeelay Soomaali meel ay joogtaba waa isku cadow wax kala qaybin karana ma jiraan marka waxaan leenahay guuleysta dadaalkiina si laaba waxa ballan oo ah in laga guuleysto dadka ka soo horjeeda jiritaanka ummadda Soomaaliyeed dawladana waxaan ugu baaqaynaa maanta waxa la joogaa maalintii dadka aad isugu yeeri lahaydeen tala dhageysan lahaydeen tala xumadiini meesha ay nageyso waa aragtaan soo laabto caqligoona soo laabto ha ku mashquulina kursi isku dhajina waxa ku mashquushaan inaad kamera dhalisaan waajibaadka idin doortay waxaan idin sheegayno xumaan aan idin qabno ma aha laakiin la xajaceel wuxuu naga hayaa dalka iyo badbaadadiisa iyo wada jirkiisa hadii madaxda dalka ugu sareysa ay ku mashquulaan inay aarsadaan ama ficiltamaan meesha hadda la joogo marka si foga la gaaraya marka waxaan leeyahay ficilta ka joojiya u soo jeesta waajibaadka qaran ee leedin doortay dalkan isagoo midaysan inaad hogaamisaan aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.